ugu horeyn waxaan u mahadnaqayaa gudoomiye Rashiid Cabdullaahi Gaas iyo Cabdiraxmaan Axmed Shube oo dhammaantii maanta kaliya taan hayne qoraya dambeysaba ku hawlanaa isku xirka bulshada iyo wax qabadkeedaba maragay marxaatina shakhsiyan aan ka ahay xukuumad ahaan laga yahay saaniyan waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha xaafadda salaadiinta boqorka Suldaan Nadiif Suldaan Daakir boqor Axmed Ugaasimaan salaadiinta kale barta ku sugan uqaasha waxaan u mahadnaqayaa oo kale agaasimaha Suldaan Saxadiid ka soo qaybgalka iyo ajiibitaanka soo ajiibeen wadashan lagu gorfeynayo danta guud ahaan Soomaaliland gaar ahaan beesha inta markaan ka yimaado horta waxaan ku waafaqsanahay Suldaan Daakir arrinkii ugu dambeeyay oo ka hadlay ayaan lagu ku horeysiinayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaynu markasta ka boqorno cabsida Ilaahay iyo ka amar qaadashadiisa qalbigeena iyo qulubteena ay ku lehnaato takriyeenu ku badbaadayna xuquuqda iyo xaqayna tabayna naga maqan lagu heli karayaa waxa weeyaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo la raali geliyo wuxuu na farayna inuu qaadano wuxuu naga nihiyeen aanu ka tagno xisada iyo sharafta iyo karaamada bini'aadamka cidda haysa maaha xukuumad cidda haysa maaha shakhsi laakiin cidda haysa waxa weeyaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan rajaynayaa ifafaalooyin fara badan oo aynu kaga baxayno dhibta dhaqan ee muddada dheer aynu soo dhaxalnay ayaa muuqata jiilasha cusub ee imika kacay ee bulshada reer Soomaaliland xukuumadaha talada iska dhaxlayay intoo dhanba waxay diyaar u yihiin wixii hore inoogu dhacay dhaqankii la seejiyay in laynala qabto beeshana waxaan aad ugu diirsadaa sanadahan dambe inay markasta ka barakacayaan isbeddelka guud ahaan bulshada Soomaaliland ay danahooda iyo deegaanadooda iyo dadnimadoodaba ay ku sameeyeen sidoo kale waxaan aad ugu mahadinayaa isku xidhnaanta iyo midnimada ay markasta sameynayaan markaan ku soo dhawaado gudoomiye Rashiid Cabdullaahi Gaas maalintu halkan imanayay waxaa loo soo dhaweeyay si heer qaran inuu madaxweyne qaran dalka imanaya la moodayay laakiin madaxweyne kama uu dhacay waxaanu ka dhabeeyay wixii lagu soo dhaweeyay oo beelaha oo kala daadsan oo dhabaantii aniga dib gaar ay ugu hayay ay mas'uuliyadda iyagu qaadeen haday tahay hawlsame haday tahay hawle haday tahay wardheere haday tahay madhibaan haday tahay muuse haday tahay adnaas waxa kada isku duubnidaasina yaana noqon baan leeyahay mid ku kooban oo kaliya ta madashan iyo mid ku kooban inta qurba joogto laakiin hal noqoto ma sii waarta oo bartaan laga sii wado waxaana soo socota doorashooyinka golaha deegaanka waxa soo socota tii baarlamaanka waxyaabaha ay dhibayana waxa kamid ah maalintii dhawatana madaxweynaha la arkay iyo kulamada kale la arki doonaba iyadoo dhaqaale ahaan iyo aqoon ahaan bulshadani u tabaabusho daran tahay oo aanay maanta dhaqaalaha iyo saaxadda siyaasadda Soomaaliland si muglaayna uga muuqan inay iyagu gudahooda isa sii falfaqaan oo ilaadaa reehebel waa ayaan darro weeyaan deegaan markay yeelataan ee bulshadu isku filnaansho gaadho ay siyaasad ahaan tacliim ahaan iyo isku duubni ahaan u dhisnaato ayaa la yidhaahdaa xuquuqda dhiman beel kasta gaarkeeda ha loo siiyo laakiin common name baa idinka dhexeeya idinka oo magaca keliya tad wadaagtaan kiina maanta mid dila hadduu hawle yahay kan waxa loo dilayaa muusaha yacni waxa weeyaan qabiil keliya ta laydin yaqiinaayo gabooyo la yidhahda idinku gudihiina guddiyo gaara samaysta oo darafyada kala duwan ee qabaa'ilkiina ka kooban at the same time waxaad u samaysaan inay guddiyadaasi xuquuqda maqan raadiyaan wixii soo baxana sida loo saaxadda siyaasadda iyo tacliimiga loogu kala badan yahay ha la iskugu tanaasulo oo ciddii saaxadda siyaasadda ka baqan hadday annaas tahay iyo hadday muuse tahayba iyaga mudnaanta koowaad siiya taasi waa internal marka wax dhibtiina gudihiina internal oo gudihiina inaad markasta bulshada Soomaaliland iyo xukuumadda ku dhaleecaysaan xuquuqdaasa maqan iyo waxaasaan raadinaa waxaasaan kareemay ilama muuqato waxaan soo dhaweynayaa canaanta gaar ah midinku canaananaya waxa weeyaan waxaan ogahay miisaanka leedahay golaha deegaanka iyo baarlamaanka representatives baa loo baahay cid idinkeedii ka wakiilo idin matasha baarlamaanka Soomaaliland 8 sano uu dhisay yahay xeer ka hadlaya xuquuqdiina oo la soo bandhigay ma jiro waxyaabaha loo doortay waxa ahayd in magaca maanta la idinku hayso ee dhibtoodii ka hayso in act laga soo saaraba oo qofku yiraahdo inta maxkamadaha la dhigo la soo dacweyn karo la yiraahdo xuquuqdeedii muwaadiniintu ku cadgudbay baarlamaankuna xeer nambar noocaas u bariga ansixiyay hal qabto oo talaabo sharciga waafaqsan laga qaado
laakiin de yaa ka hadlaya cid idinkeeda ka wakiili kuma jirto ka muuse tegi lahaa ee soo bixi lahaa de ka hawlo isagaa u fadhiya oo maaha ma odhanayo anoo muusaaba meeshii fadhiya tii deegaankaa taala 1991 ilaa somaliland intay soo noqotay ilaa imika wadadaas suldaan imika ka hadlaya laamidaa daamin marta dhibta iyo darxumada ka taagan ilaahay baa xisaabsantay mch xaafadii kuma yaalaan oo maxay tahay dumarkeennii uurka lahaa dhibta haysata waad ka warqabtaan markaynu dhabaxaan u wada hadlayno laamidii daamin laamiyada magaalada oo dhan waa la dhisay waa deegaan ahaan bartaad u badantihiin iyada laftirkeedu ma dhisna saldhigii xaafaddu waa baaba environmentkiinii baa liita de yaa ka hadlila golihii deegaanka cidiidu kuma jirto war ilaahay kii haba noqdo yibir hadduu doonaa maanaasa noqdo horta bal qof keena oo marka imika doorashadan ay dhacayso tafaraaruq iyo tafaafuliyuneedu ku imanin waxaad samaysaan qof bulshada gabooye matalaya sida aniguba maanta aan bulshada gabooye wada matalayo qof idiin matala keensada oo aad ku xisaabtantaan oo one step forward baa kulba la wadaayo ta maanta marka mid aad heshaan beri tolana 3 iyo 4 iyo 5 baarlamaanka oo imanaya laakiin markayd iska dhammaan weydaan aad tirahdaan kani muwaadin maaha kani waa muuse kani waa anaas kani waa maxay xuquuqina dulhanaysaan way adkaanaysaa marka hadhow tolo marka tacliim ahaan iyo dhaqaale ahaan aad cudud yeelataan isku filnaansho gaadhaan idinku iskala qaybiya laakiin imika isku dugnidaasi mid maanta lagu raali gelinayo rashiid iyo cabdiraxmaan uniyana noqonin ha noqoto mid sii jirta cabdiraxmaan iyo rashiidna waxaan leeyahay safarkiinu waa soo dhawaaday beri tolo axad ahayd waxaan filayaa madaxweynaha inay la kulmaan laakiin way duulayaan iyaguna dhabahaantii doorkoodii siyaasiga ah iyo madaxda araggeediba si fiican bay hawshiina u galeen waxaana ka marag ahaa wasiirka madaxtooyada iyo madaxweyne ku-xigeenkaba markay arkayeen waxay kala hadleen xaqa siyaasigeedii ka maqan madaxweyne ku-xigeenku kelmaddu ku yidhi waxaa ka mid ahayd taa iminkaan taakiidinay war goolayaasha deegaanka buuri idinku iyo baarlamankaba is-abaabulo isku duubnaada mid keliya waa inaan rag dee soo kaxayn karaya odhada waa kuwa siyaasiyiintii beeshu laakiin dee waa ayaan dar markaan soo dhawaado xukuumaddu wax alaaliya waxay diidan tahay ma jirto wax badan baa la doonaya in laynala qabto laakiin xuquuqdaa laynala raadinayo waxay ku hagaldaacaysaa khilaafka gudaheena taana ha loo soo afjaro golaha dhaqanka ee beeshana ha la sameeyo howlaha mida laga soo qaado baalka mida laga qaado yibirka annaaska kuwaasi ha matalaan beesha salaadiintan iyo gruubkani gaar ha noqdaan oo wixii adkaada iyaga ha loogu yeero ila suldaan gabadh iyo nin isfurayo loogu yeerayo subax kasta maxkamad u ayaan dar iyo nusqaan marka waxa weeye golahaas dhaqanka aad samaysaan madaxweynaha la kulmaan aan u soo ballamin xuquuqdiina maqan ha lagala hadlo baarlamaanka sida lagu gelayo haddaad doontaan mucaarid boo wada noqdo oo muxaafidba ka baxa laakiin muhiimaddu waxa weeyaan waa cid idin matalaysa in la hela muhiim dhinaca kale waxyaabaha dhibaatooyinka inaga gaar ahaan ina haystaa markay saxaafaddiina joogto waa la tibinaya haddana mar kasta ka hadalno oo aynu odhanno nusqaantaasaa jirta iyo nusqaantaasaa caynkan iyo nusqaanta marka saxaafadda lala hadlayo oo kale arrinta imika suldaan daakir ka dhawaajinaya ee ahayd xagga masaajidada oo kale waxay ahayd marka beel ahaan aynu gudaheena nahay inaynu si gaara isugu canaanino waana dhab ahaan dhaliil muuqata oonan dafinaynin laakiin miidiyadoo kale way ka baxaysa taasina boog bay nagu noqonaysa waxaa loodhanaya masaajidada ma gala taasna waxaan iyadana rajeynayaa wixii qofiba qof ka tabanayo iyo wixii dhiba ee dhaqanay jira in si bulshada dhexdeedu wacyigelinta laga bilaabo laakiin aan saxaafadda la marin khulaasatul qowl waxaan leeyahay isbedel fiican baa muuqda xukuumadda siinaayana kullaba way ka go-an tahay wax badan inay nala qabato beesha keliya hata beelaha somaliland maanta la taliyo loo sameeyo waa innaga waxaa laynoogu sameeyey asbaabtuna waxa weeye oo dhibtaa dhaqankuuna dhaxalsiiyey jaamacadihii waa taa bilaash laynooga dhigay xuquuq fara badan oo siyaasi oo naga maqnayd hadday shaqaalaysiinta dowladda tahayna waad ogtihiin digreetada madaxweyne kusoo saaray bala golihiisa wasiirada maalin kasta shirka la gala xagga hoose waxaa kaga qoran dadka dhibta dhaqan iyo ay xuquuqda siyaasiga jeesisay mudnaan gaar ah la soo taana diyaar baa laynoola yahay waxaan sii adkeynaya oo sii ta'kiidinaya markay madaxtooyadu tiraahdo war gabooyaha loo yeero anigu muuse noo iman maayo madhibaan noo iman maayo waxaan doonaynaa bulsho wada dhan oo danteeda gaar ahaaneed intay ta shaksi ahaaneed meel dhigto ta guud ka wada hadlaysa oo inta madaxweynaha hor fadhiistaan idhahda waxaanu kaaga baahanna jalan ku-xigeenka ciidanka barasaab ku-xigeenka ciidanka way hay barasaab ku-xigeenka gobolka maroodijeex baa de maqnaa deegaan ahaanna waa laynoogu yimid waxaad inayna soo abaabushaan oo la yidhahdo reer dhanna sii madaxweyne madaxweyne markuu idin ogolaadeen idinku gudiga hooskiisa noqoni mid dan gaara lagu fugo
تفرارق وجودهن يس عشيد كي يسرب سان إسكدايا كمان تمال فلسطين موسى هلا بريايو كيبر كمال فريا كناس كمال فلسطين هلا بريايو كمحاته حوله مال فلسطين هلا بريايو حتى لو ترى مركز في الناشط قاليو أو عدود أو يابنا قبيل كستبقى كيس هوش رتاوسون وين لكن إما كمان أنت إنسان سكون أنا أقول ما قبيل الاسكال صاروا خلاصة القول وحصل وين يا كلنا كنا كلنا خير لين ولا هاي نوغل لينو الشفل كان إنك الشيء جاي حكومته I don't know أنا ما هو لكن واحد سعافته وضدنا تلاقي تكوها يو أجاسمية شو مقينات رأسنا وإنه رادين أنا قلنا مدعونا وكلاهنا وأنا كلاهنا والسيرة اللي في تركيا دي صور رأسنا وبلا مساق بصدق ردين قبلنا ولا هذا ما أنت لو تلبس شغالين اللي يصير واحد كتب ددار في السودان الذي في بقرة أحمديو السوداني ديو السودان كريو وقاشر ددار في أموتشية سنادين السودان سعدي هي تعصبه كتب ما أنت هذا اللي بيقول صار نقد مدحولي واحد صار مقنع ويحين رأسنا هذه النوع هذه كمان نقيا عبشية على البابيش اللي ويقول عبشية على الكينامك واتشرتين هورين وصعنا قرب جوجتنا الدور كده ومقيها حاسب بينك معها ولا ودوقها وان كبر كعيا لكن ده أول بما يدعي شرينا يسودي لدان ودلك إمادان قان شخصيا أنا ما كان ما تكون ميمن وما نتي ورنا وكم مدارك القدومي وكل شيء سببته إمادان تلا قرب جوج بهاي يجنا يان يد اللي قدرين وحيد تلفوننا على كل واحد الكرسان كل واحد لا وحين سود وين كرسان سود ويا عناته بدلنا نسكدينه وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.